السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا جاي حمد عثمان وبعدين سلامة يا البو أدميدي كجوكتان خاصة قبل كشباب هوسي أفقوي حالده مدك سيدة كل دوكومنتيغا guriga aan u dabagalayaa markaan idin leeyahay yacni sidee wax u dhaceen qofka cuna cuquubooyin buu la kulmayaa adduunyada iyo qabriga iyo aakhira saddex adduunyada cuquubaadku la kulmaya waxay noqon karaan waxaan xaaraamta ah oo kasbay ilaahay inuu halaajiyo u baahan waxay noqon karaan jasadkiisa iyo caafimaadkiisa ilaahay inuu subxaanahu wa tacaala ku ciqaabo oo musiibo ay ku dhacdo wuxuu noqon karaa carruurtiisa iyo ahalkiisa oo xaaraamta quudiya xaggooda in laga gaaro musiiba inay ku wareegto naftiisa iyo maalkiisa iyo ahalkiisa uunan ka log bixin المدة كلا جزاك الله خير شيخو مدان وذا أغنها كل دينتو إنو فريسا وحول بقو قفكا ولو قلمي كرم عنها لكن عمل كان لو باهي مدة كلا أنا قل شيء كذا دي أرتا مدى إذن شيء قايا شليتو عن ويلكي عمار كسو هذا للشيء laguma dhaafin aan leeyahay maanta reerka anoo aan xabadna ogeyn xaqiiqada idin sheegayaa hadda baan reerkii cunugeygii waxaan u nigeystay hadalkaa kadib ee qur-aankii in la ii saaro waxay ii sheegeen reerka xalay toole baa ilaa iyo 3 saacadood cunugaagi sibuu ahaa allah caafiyo allah ummadda allah ka qabto cadowgana allah ka qabto wixii sharta ku maleegtahay ilaahay ku celi duulaanka inuusan weli soconin baa la ii maleeyaa laakiin duulaanka si walba u socdaa 24 saac baa loo fadhiyaa wax waliba camal kale aana jirinba anigu mid kale xataa waa arkay walaasheeda raxme ismaan cabdullaahi 19 November 2021 ayay geeriyootay habeenkeedan waxaan isku arkay aan leeyahay macnaha ilaahay aan ka baryayaa macnaha reerkayaga hadduu qof ilaahay ka saaro inaan xadoosheeda aada dhinac ka soo qabanin maalinta ku xigta walaasheeda waa baxday duhura 6 saac ilaa 7 saac inta u dhaxayso ayaa geerideeda la ii soo sheegay tanna waa arkaya marka waxaan idin leeyahay qof walba wuxuu adduunyada ka qaata asay leedahay laakiin kitaabka 184 quraanka kariimka ah ayaa wax walba ka weyn waxaas ha aaminin marka gurigan uu noqonayaa dokumentigii ama dokumenti anoona ka hadlin horta sideeda waxaa idin xaqiijinayaa gurigan sidiisa sheekada maxay ku bilaabatay ثم والله إلهي مقلاي إن أنا جوري دعوة إيه وحا أنا كفرين لكن حق يا صوت دلاعايا محو كو صوت دلاعايا حقا
markaan aniga mustaqbal yeeshay oo reerkii waa wax laygu dhigay aan ogahay ayaa gadaasheedii markay sidaa dhacday oo hooyada intaas aan isku fiicannahay weli fiicnaashaa jirta markaas horaantii waxaan u malaynayaa 2 bil intaan joogay meelahaas gudaheeda iyo arrinta la sameeyey bil gudaheedaan u malaynaya xataa yacni markay aniga gadaasheeda wax ka guursatay markaa idin leeyahay aroos baa afgooya rabay in xaflad loogu dhidhigo waxaan ka war helay in gurigaas lagu dhigaayo markaasaan maamada la xiriir waxaan ku iri salaamu calaykum ma fiican tahay haa waxaasaan maqlayaaye maxaa ka jira haa waa jiraawo ma adigaa shakhsiyadaada ah mise waa lagu hagayaa baa ku iri ma qofna talami ugu darsanay anin leewaaya de hadda waxaan ku iri gurigaas xaflad ha ku dhigan wixii idinka aniga macnaha oo reerkii ka soo jeeday xafladdii meelaha u geyso ama guri baa leedahay gurigaa geyso xataa ama gurigaa leedahay gurigaa geysa ma dhihinoo waxaan ku iri gurigaas bes ha ku dhigan aniga tikidkayga juun buu ahaa inaan dib u soo laabto gurigii waxay istaagtay waa ku dhiganayaa ee ma ku dhiganaysaa ku iri ee waa ku dhiganayaa wax arti samey maxaa igaga baxay marka meesha inay awood gaara lasoo baxday ee gurigii inay ciida leedahay ay sheeganayso marna ilaahay amarkiisa haddana arrintan markay dhacdana waxay ku leedahay anigii furaha waa ku sii lahay saan waaye waxaa noogu samaysay waxaan dacwadaa ma ficna okay ka gudub xal mastuuran raadiyey waa joogaan odayaashii shiiqaasha ahaa maamadii shiiqaal reer aw xasan ayay ka soo jeedaa waa loo yimaaday waa lala fariistay waa lala sheekaystay annaga wixii ku soo gaara meeshaan adaa mas-uul kaa nahaye maxaa meesha kaa yaala waxay ku jawaabtay aniga xabad shaqo aan ku leeyahay male beri ka bax haddii la ii dhaho waa ka baxayaa laakiin ninkaasaa nagu haaya guriga laadalus aa guriga nagu haaya xilligaa kadib marka asiga guriga 4 sac buu ku noqnoqonaya marka okay kasoo gudub hadda isinka jir hamay aadayaan waa jamaal ay ahaayeen dabcan waa saasay kaa tahay macnaha okay markii fadhigii aan idin leeyahay ilaa akhyaarta ee maslaxada aan ku raadiyey fiira hooyadaas xamso halaan ka bacdi dee waxay ugu yiraahdeen laftooda waxay i siiyeen qadkaas cagaaran isaga soco marka waxaa ii dambeysay ayadoo fadhiga familkeygii lagu sii yeesay markaan idin leeyahay wiilkiisaa haray wiilkiisa asiga u dhalay fariin baan u mariyey waxaan ku yidhi aabbahaga cesho aniga ma la hadlin laakiin fariintaas walaalkaygay dhinaciisaan kaga sii gudbiyey wuxuu keenyey no marka sheekada markaasay socotay dacwadiyaa la tagay waa i xirtay maxaan kaa galabsaday aniga waa i xirtay maxaan kaa galabsaday kuley isboortiga haddii qofka ringaha marka la fuulo xataa markay islaayaan 12 round gacmay isgeliyaan waa la kala tagaa laakiin adiga xabsi 4 mitir baa i gelisay
2 mitirna aan ku istaagayo 2 mitirna oo kaadi iyo xaar ka dambaysa waa ciilooda si kasta aan isu ciileeyey waa yacni waxaan iri adduunyada mataana ma sidaana kugu dambaysa xamso adduunyada dacwadii waxa maaha ragnimadeedan leh waa iska dabaray walaalkeeda xataa waa imaan doonaa waa lii xiri doonaa waa iska jafjafe boorka yaan u dacwoone qof aan aga aar sheeganay ma jiro maya adkaysigeedii iyo macnaha ay waxaan lahayn iyo macnaha meel la mara male macnaha xadkan waa soo xirmay oo halkan keliya ku oogeen waa ay dadkii wax dhexdhexaadinaya waa birtaa loogu dhuftay saaladii ay saaran yihiin marka ishaasaa laga daawanaya waxaan kala helnaan leenahay marka dacwada waxaa u dacwoonaysay waa qofkaad waalid ku ahayd shabakada isku ahaydeen meelii maslaxe ee ku jirdhana adiga maahane meel kale ma qabatid soborlooga guriga u samaysay hadalkayga tv-ga aan ku dhahay mar saas daqiiqadaha ii go'ay waa soborlooga waxaa ku qortay 3 qof oo nool oo hadda joogta iyo waxaad ku qoratay qof geeriyooday cabdirashiid shariif cumar cabdi hilowle aan jeclahay xaaji hilowle qofka dhinta maxaa u nabsane kamaba ka argo hayo kanka darsaba wax dhibo ma leh arrintiisay u socotay meel bay lasii gaargaaray wax walba oo laga soo tago dacwadii waxaad ku dacwootay in gabadheedii oo xuquuqdeedii la duudsanayaa tiri haddana adoo marka hore qiratay wakaaladna ma wadatid hore haddaa u sheegay ma ogi ilaahay amarkiis qofta uu u doodooyo ayaa imaanaysa afgooye aniga markaan maqle markay soo hooyatay hooyadeed waa la soo xiriiray waxaan ku iri fadhi aan wada fadhiisanno aan wada hadalno sidan wax ma noqonayaan maya saan ceeb bay ahayd sida waaye aniga waxaan ku iri weli darajaan idin haayaa iyo qaynuun iyo maamuus ilmahaasaad wax u tihiin baan ku iri laakiin waxaan kuu sheegayaa wax walba oo idinku dhaco aa isku keentaan idinka shuqul ma ku leediin baan ku iri waana kuu sheegay laadarluus madaxiisa ayay wax kasta idinkuu gaarayaan baan ku iri ka digtoonow laakiin waa ka dhaga faraysatay ilmaheygii way ka soo dhuumatay afrikay timaaday waaba qoftii oo macnaha hadda uu u dacwoonaya hadda reerkiina fadhigan iga diiday wax walba aan iraahdo in oo macnaha oo lagu kala baxo wada miiska aan isku nimaan aan iska dhaadhicina waxaan qoftii oo laafaan haaya oo timida ilaahaa keenay ilaahaa soo arooriyey birtaa laygu dhuftay maxaa laga hadlayaa baa lagu yiri okay qofka guriga loo dacwoonayaad aheede maxaad u sii joogi weyse oo aniga dacwada aad ila sii wada weysay oo maxaad u carartay maxaa kaa cararsiiyey afgooye asamaa ku yiri macnaha saldhig hadduu kaa soo dacweeye carar
of course dabcan waa dareemaya aniga 72 saacadood maadan joogin afgooye waa baxday ma xaqaaga dhacsatid adaa guriga balgaa dhacu yahay xaqaaga ma dhacsatid maxaa ku cararsiiyey marka subarloogadii gurigii markaasaa ugu qortay waxyaabahaas wax aan soconaynin markaasaa u lablabtay de dacwadii meel walba sii socotaa laakiinse waxaa waaye meel ay ka dhaqaaqdo meeshaa maba ahaynba laakiin wax dhaqaajinaya waa wax kale ilaahay subxaana wa tacaala maxkamaddii saray jirtaa ilmahaygii waxaan idiin sheegayaa markay hooyadiina afgooy imaanaysay ee idinka go'nayd inaad meel allal meeshay aadda inaad la soo raacdaan inay idinka soo dhuumatay oo afgooye soomaaliya ay soo gashay hooyadeedina ayeeyadiinana inay geeriyootay ma aadan iisoo tacsiyeeninina wax tacsi ah ma idinka hayo ilmahaygiiyow idhagaysta meeshii caddayntan ku keenaa aan lahaa ilmahan in aysan dhalin bay muujisay carruur ma lihi waa kaasaa carruur ma lihi meeshaa ku tiri un marriage no children carruurteediyo saa u sii ogaada in oo caddayntii aan idin keeni xataa saas u sii ogaada in ay idin leedahay qofna ilama socdo waa keligay baan ahay waataan idin dhahay carruurteeda waclamiya xaggee yaa siisa yaa ku wareejisa anigii kolley waxa waaye waxay noqotaba haddeerna norway aan imaadayna waa ujeedaa maxkamadda noocaas oo kale waa kuu soo dhacday waa lagaa sugayaa inaad timaado waxaan kuu rajaynayaa riixdaada eeridan ha noogu soo dhaweynin bliis waa kaa dalbanayaa riixadaada meesha ha soo gaarsiinin isdaber hotel sii deg ama ummad kaloo shacbiyad kale haddaad ku leedahay ku deg maxkamadda sidaa ku qaabil marka maxkamaddii waxay sii socotaba guriga ninkan hormuud u noqday ilaa maxkamadda sare maxaad ku soo xustay waxaa ku soo qortay ninka doodaya haddana inuu yahay abtigay kale maxamed waad ogtahay goormuu dhintay maxamed cabdiraxmaan goormuu dhintay ereygaas malafkaasi markaan helay cunugu dhalayaan la soo xiriiray ma la xiriirin laakiin meesha asigoo maraayaan qabtay oo la hadlay kaali fadlan baa ku yidhi wax yar ila wadaag waa nasridiin waxaan ku yidhi magacaan fiiri soo aabbaaga maaha maxaa keena meesha maya asigaba wuxuu yidhi wuu la bixi karaa dhib male waa caadiye nasridiin adoo intaa la eg waa rabaayaysanta waa rabaayadaysanta runtaa kuu sheegaya haddaan afgooy dib dambana isu arkana ani adiga salaamu calaykum ha ila soo aadan
waayo talaala qabtaa talaal fadhiga la fadhiya xataa markaan aniga warkaaga ku soo qaaday in allah yarzuqu man yashaa bikayri xisaabin ma jiri karto maxaa hadalka nuxurkaaga xataa hadal maaha meelo qaarkoodana ha isku fariisan hadda ka bacdi jah ma lihid jah cusba ma ku jirtid cusbo dalac bilaash wixii aflagaado waa iga reeban yahay aflagaadana ma iga ah marna laakiin waa kuu sheegayaa macnaha aniga hadda kadib waxaan leeyahay waraaqdaas kolley al-ultima meeshay jirta iyo dacwada ku maqan tahay maamulka koonfur galbeed ee dowladda ee ka tirsan xukuumadda federaalka soomaaliya waxaan leeyahay garsoorow dadaalkaagii iyo shaqada aa wado iyo ummadda sidaad macnaha oo shaqada lagugu dhiibo aad ka soo baxaysa aan kula socdo garabkaaga allah galo nin walba sida xaqa aad u kala doodinayso marka anigana waxaan leeyahay xaqaygii waxaan filayaa kolley siduu rabbi ilaahay iyo wax walba uu og yahay ayaan ka sugayaa jawaabta meesha alala meesha ay timaado goor alala ama goortay noqoto aniga ka ahaan lafteyda waxa waaye sidaan hore idinkugu sheegay wax mucjisa oo yar aniga qof ma arkin sharta aan aniga leeyahay afgoy haddaan tago anoo fiyo ma ka soo noqon doonaa sharwadayaal wixii oo dhan ninka la kulmay waan ahay markaan idin leeyahay waa kanaa waxaan idin leeyahay waxaan wax ka weynaan keenaya ani maanta aabbe ima noola hooyaday ayadoo maanta waxay baxday xaqiiqada kaala hadlaysa anaa aabbis u ah anaa isu hooyo ah maanta anaa walaalnimo isu ah anaa adeere iyo abti kulli macnaha abti iyaana dhehine kulley wixii aad ku qaabil lahay oo dhanna aad soo tiri waa ka xumay uqdada nabarkaa intaa kugu jirtana wakti fog weye wakti fog hadda maaha baa jamaalka nabarka aad u qabtay wakti fog waaye ma yar inta kuma taalo waa kuu sheegaya aniga waxa leegu kacay waa u jeedaan ma shidaayo ma daaraayo waa filimo aan haayo masas la iisoo adeegsaday weye masas la iisoo dirsaday ayaa xagga ku jira dabcan kabeliyaa jira anoo barsada fadhiya saa igu soo fuulay asigoo oo dhalaalaya aa lagu soo dirsadaan ku iri ey baa tahay ul aan u qabsanaya maan hore ka cararay waxaa jirta ilaa beedhawo ninka lugtiis geeyaan ahay wax kale maanu u aadin dacwadaasaan daba ordaya weli doole baa jira aan ka faka waaye dooliyaa jira aan ka faka waaye mar dambe anoo hergel maalin hergel ah iska tahay anoo jiifa waxaan arkay thuma wallaahi asoo sariirta igu fuulay oo wax dudka iga taabanayaan aan arko waa ka booday intaan qabtana waa siga waa ugu fogtay
dooliga laftiisa waa yahay waa lasoo jabaabinayaa and then korkaaga hadduu laga yaabo inuu si fiican ugu socdo waa ku baxday. asmana ma nin asma u tuurteenaan ahay oo neef la socdo oo dhiig ah aan ka badbaaday. waxa kaloo anigii qabanaya maxay yihiin? allahuma najarna. ani sixir ma aaminayay, wuu jiraa asxaabiyada lasoo sixiray, laakiin in allah maca saabiriin maan jooginaa. in allah maca saabiriin way jirtaa, sabarka wuu jiraa. sabarkii intaa la eg aan soo qabtay, fitnada igu bilaabata aan leeya ilaa la'aana socota, sabar ka weyn ma jiro. ma jiro sabar ka weyn intaa la eg. laakiin mar bay wixii iska dilaacayeen dheriga kuleelka karkar ah ka keenaa la yidhi. marka intaasaan leeyahay, ilaahay rabbiyow waxaan ka baryayaa, ilaahowna ammaanso, malaa'igteena adaa garba saaray, ummad walboo socota addoommadiisaan aan nahay. ilaahay ha laga baqo, ha lays dhaafo, ha lays tixgeliyo, ha lays maamuuso. maanta tani si hadday kasii fara badatana waxaad idinkii isku keenteen waay. haddaa isku tagteen kullu fitna cinda geelna waa idin sheegayaa. laada roos waay, adduunyo aakhiro. ma soconayso taas nolol ma ah. waxaan idin rajaynayaa insha allah, haddii alla yiraahdo, waalidkeygii intii adeer u aadan qof aan la qaban karin male. because hadday qaba laheedeen horta pointi mid oo qofkii aad u tegi laheedeenna waa midoo yacni haddaad qaldan tahay aad ileedihiin waxaan ka hadlaaya qaladkayga waa qirana aniga. laakiin nin saa loo gelaayo ayaan ahay oo rabo inuu isdifaaco. self defense ayaan ahay, self defense. waayo aniga adiga haddii oo si kasta aad iga yeelato mas iswaabaalay usgey shalay mas iswaaba la dhihi leedeen maho, way ugu farxi leedeen macnaha. laakiin ninka isdifaacaya waa aniga. wax walbana aad keentay ama aad ku soo dhaqaaqdeen intaasaad isla imaanay. haddii qabasho maanta la yiraahdana waa lii qaban karaa, laakiin waxaan ogahay difaacidda aan isdifaacaya, maadaama aabbi ii nooleen maanta hooyadii ugu dambaysana aan idinku ixtiraamayay ay baxday, inaan anigana booska aabbahay aabba kolley markuu uu dhinto waxaa la yirahdaa wuu dhuntay. laakiin hadday ilmihiis joogaan waa run, ilmihiisaa jooga, annaga ma nihi. no, intay nafta igu jirtana uqdad wallaahi oo bilaahi oo tallaahi anoo igu jirta oo murugsan inaana baxaynin. gobonima adduunyada ilaahay nafta igaga qaadaya. qof kaloo aniga aan dembi ka galayna male reer afgooye. qof kaloo ciil iyo wax aan suu qabnana male. wax walboo lasoo maleega iyo wax walba ay noqdaan gacantiinaan ku baxayaa haddee noqoto. taana waa igu goondisay, waraaqdeedana waa kaa taalaa xagga. meel xunaa kuu dambaysay maa joogta inay dhahday. aad baan idin salaamayaa. inta igu xiran iyo inta macnaha gobolka shabeellada hoose afgooy iyo soomaaliyo haddii ay imaqlaysaan, haddaad wax nacnac iska soo qortaan idinka idin taalaa. laakiin meeshaan aniga ilaa waxaan gaaray inaan gaal gar u doonto, gaal gar in doonto. waraaqda markaan idin tusahay aan kasoo xaqiijinayo inay caruurba laheen, gaalkiyaa yaabay.
meel dhexdhexaadin ah waa u tegey na dhexdhexaadiya fiiri xagee intaa kadib maxaa sameynaa marka haddana waa kuu sheegayaa maxkamaddan maxkamad saraa ku xigta oo caasimadda Oslo saa ula soco khayr baan idin rajeynaya insha allah waa anigii Xamza asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu